صومالي قرني ماما قبل با. يا هلا الخير يلي تاخذون النصيحة، اسمعوا عن المناصح وافلحوا بالنصايح. يا نفس إن لم تظهري لا تجزعي. dadkuba isir guud ilayn xaawiyo gebi aadan buu galaa abtirsiimadow abuuruu gudboon yahe caqliga kala geeyaye ammaan gaariyo mudnaan goonnida isu siiyeye guurkayga ka faanaye haybaha qaar gaasirow inaad keligaa gob tahay. wallaahi caqabado badan oo xanuun badan baa jira dee oo qaar imanaya. kow adigoo qof bini'aadmi ah islaam ah isla markaana si fiican diinta islaamka ugu dhaqmaya marka gabadh walaashahay oo muslim oo islaam lagu yiraahdo ma geedi ismaynaan guursan jirin halkeen isku guursanay miyaad haysaa taariikhaynu isku guursanay waxay kugu samaynaysaa miyaanad islaam ahayn miyaanad qof bini'aadmi oo ilaahay abuurtay ahayn sidee buu qof kula mid oo addoon ilaahay caynka ku yidhaahdaa waxay diintaada ku ogashay sidee baa lagugu diidaa waxa kale oo iyadana Bukhari warinaya Abu Hudayfa inuu ninka Saalim la yiraahdo oo ahaa mawle markaa uu ahaa gabadh ansaar kamida wuxuu u guuriyay Hinda bint Utba ayuu iyadana u guuriyay oo ayana gabadh la garanaya nasabkeedii iyo ciday markaas ahayd. waxa kale oo Bilaal ibn Abi Rabah oo aynu garanay isaguna nin madow inuu ahaa inuu markaa u guuriyay Cabdiraxmaan ibn Awf walaashi inuu guursaday ayaa iyadana sugan. taasi waxay ina tusinaysaa xadiida faraha badan ee aynu istabagelinay aynu tilmaanay inaan guurka laga eegaynin oo aan kafaadiyo oo qaranka laga eegaynin dhinac nasab iyo dhinac shaqo toona bal kaliya waxa laga eegayaa inay tahay xagga diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqan wanaaga ayaa laga eegayaa. waxa uu leeyahay uma sugnaanin qof mu'mina iyo gabadh muuminada rag iyo dumar midkay doonaba nin mu'mina iyo gabadh muuminada midkoodna uma banaana oo uma haboona ilaahay iyo rasuulkiisu markay arrin xukumaan inay khiyare iyo ayaguna door ay yeeshaan oo wixii ilaahay iyo rasuulkiisu markaas amray wax kale ay ka doortaan uma sugna. runtii ummadda Soomaaliyeed ayadoo 100% islaama ayadoo islaamnimada markaa inay ku dhaqanto haysata haddana waxa jira runtii qodobka inay aad iyo laxaad ugu gafday oo dad walaalahooda oo diinta islaamnimada la sheeganaya oo la dhaqana oo weligood meel la joogay inay markaa takooreen oo magacyo u bixiyeen oo markaa ay tilmaameen inaanay isgeyn oo aanay markaa gayaankooda ahayn oo ay markaa midga ku sheegayaan oo yibra ku sheegayaan oo ay markaa gabooyo ku sheegayaan oo tumaale ku sheegayaan oo leeyin isma geyno. haddii islaam aynu nahay oo islaamka aynu ku dhaqmaynana islaamku waa ka aan sheegnay waxa aynu nagu akhriyaynaana waxba kama jiraan weeye. waxa dhacday maanta in hableeni Jamaican loo guuriyay inaynan ku aynaan meel aliyaaliye meel ka soo jeedaan aynaan garanaynin ay guursadaan meel walba ku qabaan kii ay isku guriga haydeen isku soo kacanteen waligiina isgaranayseen in loo diidayo leeyahay leesmaga islaamkuna intaan isgeeyni waa dad kooban dumarka maxaarimta hooyada walaasha edada habaryarta iyo markaa sodoxda iyo aabaha qabay iyo inankaagu qabay iyo gabadha qabtay walaashe waa dad kooban oo la yaqaano iyo kuwii markaa naaska awada jaqdeen ama naaska ku jaqsiisay inta muharramaadka la ilaahay la isgeyn in kooban oo la yaqaano way laakiin dadka muslimiinta ay dhamaantood way iswadagayaan ilaahay Soomaalidu meel kasta joogtaba ha ka baqato arrinka runtii dulmi fara badan bay ka gashay ciddii markaa istoorata ee ayagu isku qanacda ee markaa diintooda iyo akhlaaqdooda raali laga yahay hal isu guuriyo halka islaamnimadeena waxba ugu jaban dadnimadeena waxba ugu jaban ilaahay ha laga baqdabaan leeyo dadka aynaan garanay habli waa la siinayaa haddii barkii hore la oran jiray de waa shaqo xun yihiin maanta intaas soo jaamici bay leeyahay haddii taa lagu andacoonayay intaas wax baratay bay leeyahay dibadii meel walba way joogaan taasina markaa qiil noo noqon mayse ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha ka cabsato walaalahooda markaa xuquuqda ay ku leeyihiin yaani meel kaga dhacin xuquuqda sideeda uga soo baxaan وين كلجرك بلشدو أي لا هي حن أم بدلي كرنا هدو أقوياهم كنا قنكرو قفل بتشين كرو أقوياهم ما
culture-ka bulshadu ay leedahay xun culture-ka sax waa inaad ixtiraamtaa ku baqagaliyo maaha laakiin culture-ka liita uu ku baqagalin karo aqoonyahan maaha ama aqoonyahankan rabnay wax bedelayay maaha haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysanahay qof daba soconno aynan mabaadii daba soconaya aragti qofka in la raaco wax xun maaha laakiin qofku waa inay waxaan ku raacsanay mabaadii aragti tahay laakiin hadday noqoto inaanu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoonyahana sheegana magac kala sheega markaa wax kala sheego min reer hebel aan iska dhahay odayadu saasay rumaysnaayeen laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu waa inay wax soo kordhisaa waa inay cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa. Courage is needed, especially when we have to challenge social status quo. Sometimes some of the social traditions that we have are very oppressive to some people, to some groups, but it takes courage to come and speak against this. The Arabs did not allow women to inherit. It took so much social courage for the Prophet ﷺ to come and address such an issue. And people would, they were an uproar about this. We do not have this in our forefathers. Our forefathers never did that. And that is not acceptable. But it takes courage. It takes courage to speak truth to power. In the hadith, the Prophet ﷺ says, أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ مِنْ أَنْ يَقُولَ حَقًّا إِذَا رَآهُ أَوْ سَمِعَ بِهِ. He said, do not let your fear of people stop you from saying that which is right. And the Prophet ﷺ would empower us to make sure that you have the courage. You have what it takes to bring about a change. Policies-ka uu soo recommend kareenaa buugan policies-ka oo dawladda soo recommend kara oo ku talabixina buugan waxa kale oo kamid ah in la sameeyo family court ama maxkamadda qoyska waxyaalo badan oo ismigiina haybsooca wax kamid ah ismigiina iyo waxyaalahaas kale in ka hor tagayo haybsooca kan u darna aad oo hadla cabaar aan ka hadlay oo runtii wax marka aan qoray xataa aan qalbi ka xanuunsanahay waa inta ugu xanuun marka xaqiraada takoorka ama soo dadka uu sameeyo qabaylkaas walaalehen listayo Soomaaliyeed xaqiraada lagu sameeyo ama heebsoo lagu sameeyo waxa kamid ah ismageeno oo yaani in iskuursan uma qalantid ma gaarsiisanid competence umali ma gaarsiisanid kartida macni aabaya xun aabay kibiti waa qanima arrintan haybsooca qof kasta oo lifsa waa wuxuu aad u waxay qof kasta ama sheekhaada ama sharifaada waliba aad u lifsanaa qof kasta hadii kabar qabilada takora qabilka xataa ka saacad ay ka xataa miikal baxsano kabar hadii aniga hadar diyaar u tahay inaan guursanaa odayaasha kamid ah oo waxaa ku jiray odayaasha la isoo oday ku jiray oo ardaydiisina oo ardayda kamid yahay sax nidaa marka badar saakina la cunay raashinkiina wax qabana badarka ay diiday oo wiilkaas oo ninkaas oo galo iyo ku istaagay macalinku wuu xanaaqay wuxuu yidhi waryaa hebelow ma hebel oo adiga kula dhashay oo tubaakada cuno oo tubaaka kuug ah oo aan salaadi dikan raashinka waad ma cuntaa wadaadkan ahlu salaadka ah oo ilaahay dartiis maaragtay anagana aan ugu xiranahay isaguna noogu xiranahay maxaa la dhahaa ma inaad raashinka la cuntaa diida uu dhahay macalinka macalinku wuu xanaaqay wuxuu yidhi oo hebelow wadaadkii la hadlayay oo yaraha la haysto ayuu yidhi oo hebelow isoo fadhiiso aniga adigaa wada qadaynayna حقيقة معلمتي iyo wadaadkii waa wada qadeeyeen from that day maalintaas laga soo bilaabo waxaa dhacday in xataa reerka ayaga ah in reerihii kale areadaas waxta ay guursadaan dhacday ما شاء الله معلك في عنك الشقي معلك يا خير الله شيء واقرت marka macalinka diinu sameeyay aad xirinta baasha culimada u baahan tahay hadda waxa arkay u taqaana warfiir waxa arkay wiil gabadha heshiinayo israawanayo wiilka maxay ahayd waxa waaye in shantiisa waqtiyood misaad jamaacada ku tukado
سافي عن شقيسنا مصروفا كرجبتاس أيضا أنا كوكان عشان تهاي مركز صادون أنتو إنه قدروا ويل عذير كذا ويالكيس أوداليو فاجر تارك الصلاة عن إنه كف مع سكر الفول كله كي عم موريان عم حاجة عم خلاص أو فرد عفرها عم فرد عفرها بس كده ودي حوق كل درا دقن درجة عم ماشي لا دوفين أنت وركه نبي صلى الله عليه وسلم عم تربون دينه وخلقه زوجوا وإن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد في الأرض فتنة وفساد في الأرض لأن ما أنت مركي بسوء بدت في الحلو ديدين فتنة وفساد كانوا على عرقيه كبده وعلة دلعيو بناء كتورايو محيط لقوا إنكرايو قد بسرد لقوا إنكرايو المها محيران لقوا بسرد حوي قانا مرحك أما أنك قانو قد بسرد مسافة بوبي واحد قبلها بلا بوب الولية تي تعفيدي ولا وين ملاس تي عيار انتي لقى سحر انت لا صار تقول لك كل جراي نوصل عشان وحده زمان كل امرأة نكحتها غير إذن وليها فنكاحها باطل سلام مشاكل بدن كاس من كل حسنا كنا عم ترطون خلقه ودينه ودي لقيت خلق الدين لو بها ما ولقيت مركا نبي نسمع عسو عرنتان هيبسو عرفت كجرجرت اسم جينيدان وحايك قبليدا واحد عايز رقمه نوت الموتى مركا ولا ديرنا نبي صلى الله عليه وسلم وسغوري كل يسمعي كل عندير قصصه هير قش وشرف بدن يكون تمين نوع هذه marka arintan arin laga shaqeeyo aad insha Allah ta'ala arintaas waa kula aad iyo aad ugu qanacsanahay insha Allah ta'ala waa ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay haybsooca waxaa lagu micneeyaa dhaqanta koorida oo aad u xun lidina ku ah bini'aadanimada sidoo kalena ka soo horjeeda waxyaabaha ay nafarayso diinta islaamka ee muqaddaska ah ee Soomaalidu aaminsan tahay waa mid ka mid ah caadooyinka gurcan ee ku milmay muddada dheer dhaqanka Soomaalida waxaa loo arkaa ku xadgudub iyo godob weyn oo laga galay qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo haba yaraatee aanay jirin waxay uga duwan yihiin qaybta kale ee falkan kula kacda haddaba dad badan oo Soomaali ah ayaa muddo badan ayuu dhaqankani dhibaato weyn ku hayay qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waayadan dambe waxaa soo muuqanaya fafaala muujinaya bislaanshaha dadka Soomaaliyeed ee ku aadan ciribtirka dhaqamada liita ee ugu horeeyo haybsoocu